نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة نحب الله والجنة الله والجنة ودرب المصطفى سنة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته درسكنا عاو إن شاء الله تعالى وحكسها بسيء من أسباب الثورة في العالم الإسلامي وسبل علاجها كعضوناً كتشر عالم الإسلامي محاو الصبابة دونيدا مسلمين توقتي دنبه waxaan ka maqlaynaa kacdoon aad u tiro badan oo Tunis ka dhacay oo Masar ka dhacay oo Libiya ka jira oo Yemen ka jira oo dawlado kale oo muslima ka jira oo dhibaat u tiro badan oo caalamka islaami maanta ka muuqata su'aashaynu markaa rabno inaynu waxoogaa isaga tilmaamnaa waxa weeyaan maxaa keenay waxaan oo kacdoon inuu ka dhaco dunida muslimka ah maxaa u diiday caalam islaami al-istiqraar siyaasi wal-iqtisaadi nidaam ahaan iyo siyaas ahaan inay degan oo xasiloon noqdaan sida dunida qaarkeed u degantay oo xasiloon tahay dhaqaale ahaan iyo maciishad ahaan inay noqdaan wadamo degan oo inay ka koreeyaan mooyaan aan ka hoosaynin kuwa gaaladu ku nooshahay jawaab kooban haddaynu bixinno oo ninka muslimka jawaabtu bixin lahaa ah waa macsi ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa wax allaaliya wixiina asiibo ee dhibaato ah fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir baa ilahay yidhi waa wax gacantiinnu ay kasbatay waa dhaqan xumadiinna baa ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala weliba in badan baa ilaahay idinka cafiyey oo idinka dhaafay haddaynu si kooban sidaa ugu jawaabno oo maxaa xala waxa xala inaynu toobad keenno oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam raacno laakiin dadku in badan waxay jecel yihiin in la tafsiiliyo macaasidan maxaa ka mid a waxa kan keenay amase xuluusha qur-aanka iyo sunnadu inoo tilmaamayaan maxaa ka mid ah kuwaas baan doonayaa markaas inaynu wax ka tilmaamno caalamul islaami waxaad moodaa laba shay inay kala doortaan oo qura in indhahoodu arkayaan wax kalena aan dadku arkaynin bayna adulmi aw alfawda waxaad moodaa dadku doorashada u muuqataa inay tahay imaa in dulmiga lagu jiro oo waxa dhibaato iyo mushkilad caalamul islaami ka jira iyo nidaamka ka dhisan intooda badani dulmay ku salaysan yihiin dulmiga in la sabro oo lagu jiro iyo haddii la isdhaahdo dulmiga ka baxa in fawdo loo baxo iyo dawlad la'aan iyo dadnimo la'aan iyo burbur iyo kacdoon in loo baxo dadku in badan waxay isweydiinayaan war miyaan ikhtiyaar kale doorasho kaleba miyaanay jirin waxa agteena yaallo qudhima waxa weeyaan al-istislaam al-kaamil aw al-istislaam al-mutlaq lidulm dulmiga in si dhaba loogu hogaansanaado oo la aqbalo mise waxa weeyaan al-istitaam wa siraacu sifri in la iska hor yimaado oo ibir la noqdo halka Soomaalidu maanta joogto oo kale ma ima dulmiga ku jirbaa mise haddaa dulmiga ka baxdo waa baaba oo u bax oo fitan iyo mushkilad iyo dil iyo dagaal iyo dadnimo la'aan iyo insaaniyadaba ka hadh ma labadaha uunbaa doorasho saddexaad miyaanay jiri karin ma xatmi baa ma ilowba in dulmi lagu jiro amase in fawdiya fitna loo baxo waxaynu naqaanaa qof muslima
oo wax ka fahmay ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam oo dulmi barakaynaya ma jiro ila dulmigaa baraka badan ee hala joogo isla markaa waxaan leenahay qof muslim ah oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam wax ka fahmay oo le fawdo iyo fitnaha loo baxana ma jiro waayo nusuusta sharcigaa markaad eegto labadaba si aan madmadow iyo mugdi toona lahayn bay ugu ceebaysan yihiin haddaad qur-aanka eegto haddaad xadiidka nebiga eegto calayhi salaatu wasalaam haddaad siiradii nebi moxamed iyo taariikhdii saalixiinta iyo salaf alumma iyo saxaabadii iyo dadkii wanaagsanaa say u noolaayeen eegto labada shayba xoog baa loo cambaaraynaya oo kitaabka aliya sunnada nebiga kuma taallo in dulmi la soo dhoweeyo kumana taallo in fawdo iyo fitno loo baxo fawdadu anarki dowladnimo la'aan iyo dadnimo la'aan iyo isdilka kani muslim iyo gaal midnaba uma cuntanto basharka uma cuntanto bini aadam meel ku noolo bilaa madaxoo bilaa waxba oo sa xoolaha nooli ma jiro insaanka kama suurtagal aha hadduu muslim yahay iyo hadduu gaal yahay toona waxaan insaanba lagu haynin qof muslima inuu ku dhawaaqo dadka ugu yeedhaa macquul maaha ee waxaan leenahay laa budda min samcin wa taaca waa inuu jiraa kala dambayn iyo ismaqal iyo dadnimo iyo dowladnimo iyo ixtiraam waa inay jiraan waxaan kaloo leenahay laabud waa inuu ku qaydan yahay bilmacruuf samaha waa inuu ku qaydan yahay wuxuu waa inuu sama ku dhisan yahay oo halkuu abibakar ka lahaa أول خليفة إسلامية فإن أحسنت فاعنوني وإن أسأت فاصبروني ميري فقوموني وحيدا هدي أن وناكسنادنا إيقرقارا هدان حمادنا إيتوسية أولا وحن لنا كعضون نظني يدبتني كمتشرين هدين قرآن كالراعنا إلهي قرآن كوحكولي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بإلهي سبحانه وتعالى كو إيمان لك هلو يعني إيمان كودا كدهن ظلمي أن ظلمي كدهن أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كو سا أمان إيا النبضي والسقناطي وفوضى إيا كدير محي إيا فتن إيا مشكلة haddaba waa maxay waasidada u dhaxaysa waxaan leenahay waasido dhaalimiintu ay iska indhatirtaa jirta qawqaa'iyiintuna ay iska indhatiraan iyo asxaabi alma'aarib alukhra kuwa madaxdee raba inay wax dulmiyaan way iska indhamaraan wax magaratada buuqdaana way iska indhamartaa waa maxay waasidadaasi waa alcadaala fawdo iyo dulmi waxa u dhaxeeya loo baahan yahay in la raaco waa maxay waa طريقة عدالة oo kitaab iyo sunna ay sheegayaan عالم الإسلامي markaa maxaa ka jira الدكتور الخبير السياسي العالم المعروف لا يراهdo دكتور عبد الله نفيسي ayaa wuxuu ku tilmaamaya wuxuu leeyahay الثالث المهلك saddex shay oo halaaga عالم الإسلامي haysta buu yiri waa maxay saddexdan shay ee halaaga sheekhaasi sheegaya ninka khabiirkii wuxuu leeyahay saddexdan halaagay waxa ka mid ah buu leeyahay at-tughyan as-siyasi xadgudub siyaasiya oo qilla yar ama koox yar intay madaxnimada ummadda qabsatay intay iyada qaraabada wahayd ama waxaydna intay ku soo xeertay dabeetana basharka intii kale sida xoolaha loola dhaqmay waxay culamo iyo cuqaal iyo dad maskax leh iyo aqoon-yahan iyo waxgarad ay lahayd la ignore gareeyay ama se la tuuray oo taa'ifo yari oo asxaabu dulmi waطughyaana ay gacanta ku dhigeen oo u arkaya buu leeyahay madaxnimadu inay maqnam tahay ee aanay mas-uuliyad ahayn inay tahay meel dadka lagu boobo lagu dhaco ee aan u arkaynin inay tahay maxay xil aakhiro lagu weydiinayo iyo imtixaanaad kororsanayso qodobka labaad wuxuu ku tilmaamayaa waa suu'u tawsiici tharwa ummaddu waxay haysatee hanti iyo maal iyo sharafti ahayd oo in gaari isku koobtay dadka intiisa kalena la qadiyey fi'a qaliila
ayaa qaadatay buu leeyahay wixii ummadda muslimkii ay lahayd xoog iyo xoolaba biaqdaar mutafaawita ku qaadatay intaasaana raadaysa buu leeyahay qadaayaadka siyaasiga iyo cilaaqaadka caamka iyo kuwa qadaa'iga iyo wax walba hantidooda ku raadeeya iyadoo maanta falsafati dawla fi lcaalam ama theorieska maanta dunida laga warramo aragtiyaha siyaasiga laga warramo maxay ku salaysan yihiin dhammaantood waxay ka warramaanuun how to distribute the wealth duties and rights power and opportunity bay yidhaahdaan filosofiga dowladnimo ee kala gedisan ee dunida yaalla iyo wixii mufakir dunida soo maray ee qadiya siyaasiya ka warrama gaal iyo muslimba waxaa laga warramaya waxa weeyaan sida dadka loogu qaybinayo hantida xuquuqda waajibaadka awoodaha opportunitieska furaska iyo waxa ummaddu ay leedahay sida loo qaybinayo ayuunbay ka warramaa maxay caalamu siyaasaba ama theoryga aragtiyooyinka siyaasiga la sheegaaba inta tan wuxuu leeyahay cid baa isku qaadatay iyadoo dadkana loo arko inay yihiinuun wax jeebkooda la baadho uun mujtamacu maanta nidaamka siyaasiga dunida u dhisan tahay waa taxpayer cashuur bixiye laakiin innaga caalamulislaamiga dadku ma fahmaba inuu cashuur bixiyo qof kasta intiinay hor fadhida dhammaantiin cashuur baa laydinka qaadaa saa ma ogtiin qof kastoo ay hor fadhiya cashuur baa laga qaadaa waxaana qaada dowladda markaa meesha ka jiriya nidaamka ka jira siday u qaybiyeen ama dadka ugu qaybiyeen ama wax ugu qabteen baa isweydiinta leh adiga cashuur baa lagaa qaada soo ma ogid koobka shaahee aad cabto biyaha inay dowladdu badh qaado oo shaaha madow cashuur laga qaaday oo sonkorta laga qaaday oo maqaaxida laga qaaday oo guriga laga qaaday waxa kan marka laga qaaday yaa bixiya ninka taajirkii ma bixiyo ninka taajirkii expensive weeyaan markuu alaabta soo dejiyo cashuur boqolaal kuna laga jaro boqolaalka kun wuxuunbuu ku xisaabiyaa waa kharashkii jawaankan saaraa dabeetana macaashkiisu dul saartaa kharashka jawaankan saaran ayuu ka go'an yahay waa adigaagan koobka shaaha iibsanaya markaad laba shaaha cabtaba mid baa dowladdu cabtay soo saa ma ogid yacni qof kasta oo jooga oo bulshada ka tirsani jeebkiisa ay dowladdu wax ka qaadaa su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan maxay ku qabataa sidee ummadda wax loogu qaybiyaa taxpayerku waa qofka caadiga ah ma aha ninka taajirka haddii income tax laga qaadayo maalan macaashka waxa la yidhaahdo haddii la xisaabinayo dhaqaalihiisii sanadka soo galay wixii uu faa'iido wax laga qaado kaasaa isagu kuu bixiyey ama qalabka waxa dowladda iyo dekad iyo meel kasta ka soo dega intiinana hor fadhiday inta lamida laga guraa waa jeebkaaga koobka shaaha aad cabtaba markaa barbay dowladdu cabtaa xaggay martaa waa suu tawsiic qadiyada saddexaad ee uu tilmaamaya ninkaasi waxaa ka mid ah waa waxay u tilmaamaan altabaciya lilxalif alkhaarijiy waa in nidaamadii caalamulislaami ka jiray ay u hoggaansan yihiin oo daba socdaan dowlado iyo nidaamo kale oo dabadeed oo wax kastoo awaamir oo qoladaa ka soo baxda dowladahaasi way fulinayaan dadkeeda waxgaradka iyo aqoon-yahankeeda iyo culammadeedana loo dheg raaricin maayo bulshadii ay ka tirsanayd waxay sheegayso lama dhegaysanayo ama superpowerska dunida ka jiriya dowladaha waaweyne waxay yidhaahdaan kaanama iyagu yihiinba maamulada dhabta ah ama madaxda dhabta ee dunida ka jirta oo waxay iyagu yidhahdaan hore laga fulinaya waxaad moodaa qaar badan oo ka midi ma odhanayo dhammaantood laakiin qaar badan oo ka midi inay u sii socdaan sidii kuwii qur-aanku sheegay fatara aladiina fii quluubihim marad yusaaricuuna fiihim yaquuluuna nakhsha an tusiibana daa'ira facasa allahu an yaatiya bilfatx aw amrin min cindih fayusbixuu cala ma asaruu fii anfusihim naadimiin waxaad arkaysaa baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala qaar badan oo qalbiga ka buka oo gaalka iyo cidda kale ee dabadda joogtaa waxa ay tidhi xaggooda u sii cararaysa oo marka la yidhaahdo war ummadda sida ka daayana odhanaya balaayooyin baa inugu dhacayo waxba ummadda danteedaanu sidan u yeellay waxaanu gaalka u daba soconnaa waa danta ummadda ilaahay wuxuu leeyahy facasa allahu an yaatiya bilfatxi aw amrin min cindih waxaa la arkaa in ilaahay subxaana wa tacaala nicmo iyo furasho iyo wax keeno oo ay hadhow ka murugoodaan caalamulislaami dhibaatada ka jirta
duwalka muslimiinta jooga in badan oo ka midi xalka dhibaatada waxay u arkaan inuu yahay alxall alamni, in la isku dayo security-ga in la adkeeyo, mukhaabaraadka iyo dadka basaasa iyo kuwa dhegaysta iyo booliiska iyo xidhxidhka iyo dadka u neefta lagu sii dhajiyo la yidhahdo kacdoon baa soo socda. waa maxay xalku markaa? xalku waa in laba aanay sheekaysanin, waa inaad sida dhagoolka wada socotaanuun dadku qofba meeshiisaba, waayo dawladda idin dhegaysanaysaa. dawladihii way arkaan in kara iyo dherigan ay sitaan, way u muuqataa, laakiin in badanoo ka midi xuluusha qura ay arkaan waa maxay? waa alxall alamni uma alamni uma alamni uma alamni, in xalka lagu daya uu noqdo xal caskariya oo xagga nabadaynta iyo xoojinta iyo baabkan lagu dayo. xataa caqliyada dadka ku dhodhow waxay ka dhaadhiciyeen kan yaraynu ku noolay. waxaad maqlaysaa haddii qofba uu ra'yi fiican jeediyo toban odayoole nabadda waxa yeelin, war nabadda wax idinkama hadal, nabaddu ha joogto, nabadda cidi wax ma yeelayso, laakiin xumaha ha la joojiyo, waxa laga bedelo, samaha ha la sameeyo. xal amniya in wax walba lagu daro, in dadku mar kasta uu kala doorto dulmiga aan aqballo iyo fawdo aan u cararun inay tahay waxa la kala dooranayaaba gardarro ah. waa in dadku ka fakeri karaa in xal saddexaad jiri karo oo ah inaynan fawdo u socon. fawda waxba ma tarto. ninka soomaaliga ana u malayn maayo maanta baabka in laga wacdinayo, soocaynkaa maaha. soomaaligu fawdada iyo fitnada iyo baabka waa khabiir, 20 sano in ka badan buu tajribadeeda waday, waa experts. innaga dunida u sharxayna maanta waxay waxaasi wadato. idan kaacidi kuma yeedhayso iyo wuxuu keenayo, laakiin taa macnaheedu maaha dulmiga ha la barakeeyo, taa macnaheedu marnaba noqon mayso dulmiga ha la barakeeyo. waxaa jirta bay yidhaahdaan qaacide macruuf oo la yaqaano ah, haddaad brusherka badiso, excess pressure explosion unbuu sameeyaa. yacni alkabti zaa'id, cadaadiska dheeraadka ahi ama mustamirka ahi, infijaar baa ka dhasha, qarax baa ka dhasha. haddii shayga cadaadis tiro badan lagu sameeyo, shay kastoo intii uu ahaa in ka badan la cadaadiyaa, waa maxay? wuu qarxaa. bulshadu intay qaadi karta ka badan hadday duwalku cadaadiyaan oo cadaadiyaan oo cadaadiyaan oo cadaadiyaan oo cadaadiyaan, aakhirka waxay tegaysaa maxay? qarax loo adkaysan kari waayo. waxay tegaysaa thawraadka la sheegaya inay dhashaan. anigu ma ihi nin thawradaha barakaynaya ama ka hadlaya ama baabkaa kama warramayo. waxaan ka warramaynaa waxaan jira maxaa sababay, waxaanse ka warramaynaa maxaa xal ah. idan waxaan leenahay waxaa jira kaatib faransiis oo buug qoray, markaasu wuxuu ku tilmaamaa wax marka la soo ururiyo macnihiisu yahay athawraat buu yidhi yasnacuhaa fashli alxukuumaat. thawradaha iyo kacdoonnada waxaa sameeya buu yidhi waa dowladaha fashilkoodii, ceebtoodii oo muuqatay weeyaan buu leeyahy. nudumku markuu fashilo ayaa waxa kane ka dhashaan, wataquumu biha alshucuub watastafiidu minha alquwa almunadama bay dhahdaan. shucuubtaana ku kacda bay dhaaheen thawradaha. yaa midhaheeda goostee ka faa'iida? cidda nidaamsanee isku xidhan unbaa marka dambana midhaha goosata. qasab maaha thawraddu markay dhalata inay khayr keento, balaayay dhali kartaa. cidda nidaamsan ee isku hagaajisatay waxeeda ayaa midhahana goosata. waxay leenahay marka qiyaadaadku, madaxdu, ummadda dee madax bay u yihiin, madax bay u yihiin. madaxnimadu waa maxay? soo jidhku madax ma leh, waa jidhka madaxiisii. qofka haddii madaxa la gooyo waxba ma aha. madaxdu sidaa weeyaan. maadaama ay madaxdu sidaa tahay, waxay dhahdaan maamul wanaaguba waa laba shay. waxay dhahdaan nisfuhu hayba wa nisfuhu idaara bay dhahdaan. nus madaxnimada ka midii waa haybo iyo ixtiraamka la siinayo, nus ka midina bay dhahdeen waa idaariya maamul. madaxda haddii la ixtiraami waayo o laga dambayn waayo waxba noqon maayaan, dad maaha. haddii lagalama dhigo suuqada dadka magaalada iska jooga, haddii lagalama dhigo waxba ma tarayaan. madaxnimada macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihin nisfuha waa hayba, waa ixtiraam iyo ka dambayn, waa weynayn. nuska kalena bay dhahdeen waxa weeyaan maxay? waa idaariya maamul. laakiin madaxda haddii la toosin kari waayo
ummadda bay yidhaahdaan aan dabdin karin, ummadda aan kontrooli karin, ummadda aan ilaalin karin madaxdeedu waa ummad khatar ku sugan. hadduu qof ummadoo dhan madaxa cumaamadda ugu duubanay noqoto dee meeshuu doonu kala dhacaya. walidalik baa axad alculamaa maqaal uu qorayo wuxuu ku tilmaamayaa xukaamtu buu yidhi alxukaamu cindana aalihatun laa yus'aluuna camaa yafcaluun aw annahu anbiyaaءun munazahuun macsuumuuna can alkhaطaa buu leeyahy. maaha eray saxna maaha madaxdu inay noqdaan allaan wuxuu sameeye la weydiinin. waa in iyaga la weydiin karaa, la imtixaami karaa, la xisaabin karaa. macsuumiinna maaha nebiyadunbaa macsuumiina, waa basharo akhtaa iyo gafafiya waxbay leeyihin. waa maxay waxaynu raadinaynaa marka? umamku ilaahay subxaanaه wa tacaala nebiyuu soo dirayo rusul qudwa u ah, kuwa lagu daydo. qaala yaa qawmi icbudu اllaha ma lakum min ilaahin غayruh in antum ila muftaruun ya qawmi laa as'alukum calayhi min ajrin ajriya ila cala aladii fataranii afalaa tacqiluun. fii suurati huud nabiyullaahi huud wuxuu leeyahay wardadow ucbudu allaha maa lakum min ilaahin hayruh. waxay la yimaadaan nebiyadu iyagoo dad kale ilaahay caabuda, ma lihidin cid kale oo caabudaanu xaq lagu caabudee. ilaahay caabuda macnaheedu waxa weeyaan caqiido saafiya la kaalaya. caqiido saafiya la imow macnaheedu waxa weeyaan inaad rabbiga oo qura ka dambaysid, basharkana aad ku xorowdid, wixii rabbi kuu dejiyey aad raacdid oo rumaysid, cidnaba aanad ka cabsanin alle mooyaane. idan ambiyada waxay u timi inay dadka xorayso oo ka xorayso asnaamta bashariga ah iyo kuwa dhagxantaaba laga xoroobo oo ilaahay taacadiisa iyo cibaadadiisa loo xoroobo. ثاني الأمر إن أنبياء كل واقع وحويان أمضى إن هنتدي الله إلى عليه مركا النبي ولبوح لها يا قوم لا أسألكم عليه من أجر حول إذن كما دونيه إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. القيادة الصالحة مركا ما ملوناقا إنه لاني عدالت بكل اسم كراه وكا قرآن كإلهي وكت المامية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. آخر كوا قوليسنا يدون كانوا قوليسنا وكوا لا يريدون علوا في الأرض أدون كقاق يكبر موضان فسادنا موضان طغيان سياسي موضان فساد اقتصادي موضان. إذن أمد المسلمين توحى لقربا كو كتاب يصنع هنا الرعضة لبا وحي أي دجستين إني فليان المسلمون على شروطهم بالنبي التلمامي عليه الصلاة والسلام وحي دجستان أنظمة إيا اللوائحة قوانين يد ساتير أن كتاب يصنع كهرمان إني ويان وإن لفلية إمام لماذا عادل كامر كاسو النبي محمد وحكوت التلمامي عليه الصلاة والسلام madaxdaasi sharaftida mudani inay yihiin ka mid yahay todobada maalinta qiyaame arshur rahmaanka harsada waayo waxay ilaaliyeen cadaaladii ummadda dadka cibaadadoodii iyo diintoodii caqiidadoodii way walaaliyeen maalkoodii iyo waxoodina way walaaliyeen say u baahnaayeen way ugu qaybiyeen ummadda dawlad cadaalada ama imada cadaalada haysata imaamka caadilka ama madaxda imaam qurama qiyaada dhamaanteed qiyaadada cadaalada ku sugani waa qiyaado mutaaca oo mukarrama oo mubajjala waa qiyaado laga dambeeyo oo la weyneeyo oo la ixtiraamo shariicadu saasay dhigaysaa shucuubteedu qiyaadadaasna waxay noqdaan dad xor ah oo samaha iyo wanaagga dareema iyo dadnimada iyo karaamada iyo sharafta dareema. qiyaadaadka dhaalimiinta ahina iyana waxay noqdaan kuwa la caayo oo la hadal hayo oo ceebtooda habeen iyo maalinba laga sheekeeyo oo la nacdalo oo dadku naco iyaguna waxay noqdaan kuwa dadka nacdala oo maaga xadiidka saxiix muslim iyo keyrkiiba ku sugan ama tirmidi iyo keyrkiiba warinaya waa ka nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamayey war ma idinka warramaa umaradiina kuwa ugu sharka badan leh haabay yidhaahdeen
iyo kuwa ugu khayrka badan leh. kuwa ugu khayrka badan leh waxa weeyaan nabigu waa kuwa jeceshiin ayana idin jecel ee u ducaysaan ee idin duceeya ee xidhiidhsaan idin xidhiidhiya. kuwa baa la yidhi sharka badan lana madaxda ugu xumina waa kuwa u cadhaysantiin iyana idin cadhaysan buu nabigu yidhi. idina waa necabtiin iyana waa idin necabyiin. idina waa nacdashaan oo markaas soo hadal qaadaanba balaaya ku sheegtaan, iyaguna meesha idinku soo hadal qaadaanba inkaarqabayaalba idinku tirinayaan, waa idin soo nacdalayaan. waxaan u malaynayaa markaan mas'alada saddexaad tilmaamayo waxaan leeyahay eraygaan ku celcelinaya waxa weeyaan war dulmiga iyo fawdada wax u dhexeeyaa jira oo cadaalada oo qur-aanka iyo sunnuhu tilmaamaya. dadku inta badan mabaadi'da iyo aarada si fiican uma fahmaan, laakiin tusaalayaashay fahmaan. aan tusaalayaasha badiya haddaba. tusaalaha koowaad aan idin soo qaadaya waxa weeyaan dowladdii cumar bin alkhataab. cumar bin alkhataab radia allahu canhu wa ardaah innaga agteenna waa saxaabi jaliila oo ka mid ah casharatu almubashiriin, oo ka mid ah khulafaa'i araashidiin, oo ka mid ah muslimiintu kuway ugu jecel yihiin nebiga dabadi calayhi salaatu wasalaam isagiiyo abibakara, oo mudnaan dhammaanteed ku leh dadka muslimiinta ah. dadka aan muslimiinta ahayn laftoodu waxay u arkaan inuu ka mid yahay dowladihii dunidan soo mara ee ugu cadaalad badnaa ama se ugu raadayn badnaa. walidalik baa ninka maraykan ee fisisyahanka ee qoraaga ah buuggiisu qoree la yidhaahdo alkhaaliduun almia ama the hundred buu bixiyey, boqolka ugu influence badan ugu raadayn badnaa dunida taariikhda soo mara, xumo iyo samaba wuu isku daray. hitler iyabaa ku jira. boqolka qof ee dunida ugu raadaynta badnaa buu qorayaa. wuxuu yidhi ninka dunida ugu raadaynta badan waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam, isagoo aan rumaysanayn hadda isagu, laakiin wuxuun buu qiimaynayey raadayntu dunida kaga tegay. waa nebi moxamed buu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. marka uu tilmaamayo dadka ugu raadaynta badan leh wuxuu ku tilmaamayaa cumar ninka 11aad buu ka dhigayaa, cumar bin alkhataab. cumar muxuu ku caan yahay? qarnigii hijriyadu markay 17 ahayd, yani sanadkii 17aad ee hijriyada, ayaa muslimiintu waxay furteen dholalkii ay furfurteen. waxaan rajaynaya inay ka mid ahayd ahwaaz. ahwaaz waa meel la odhan jiray wakhtiga alkuuri sabca baa la odhan jiray, 7 meelood oo laysku dara ayaa la odhan jiray ahwaaz. waa persia laga furtay, eeraan baa laga soo furtay. waa meeshuu ka talin jiray markaa boqorkoodii hurmuzaan la odhan jiray. dabeetana markii meeshaa la qabsaday ayaa waxaa la soo diray siday taarikhyahanadu sheegaan hurmuzaankiioo maxbuusaa la soo qabtay. dabeetana wixii xoolo laga qabsaday iyo meesha wixii la qabsadoo dhan iyo hurmuzaankiiba oo la soo diray. wafdi muslimiina la soo raaciyay uu ka mid yahay saxaabigii la odhan jiray anas ibnu malik, uu ka mid yahay taabicigii weynaa ee la odhan jiray alaxnaf ibnu qays. markii ay magaalada madiina in yar u soo jireen ayay idhaahdeen aan cumar tusno bal boqorrada kale iyo meeshan sida looga dhaqmee. ninkii bay idhahdeen war waxaagii oo dhan xidho, wixii boqortooyadoo dhan, xulalkii deebaajka iyo dahabka lagu toltolay iyo koofiyadihii ama taajkii madaxnimo iyo mujawharaadkiisii oo dhan bay ku taxeen. isagoo boqor u muuqdaa magaalada madiine la soo geliyey markaa oo la wado, say taarikhyahanadu sheegayaan. cumar baa gurigiisii la tegey, waa la soo waayey. cumar may baa la yidhi, waxa la yidhi masaajidku wuu idinku sugayaa. cumar masaajidkuu joogay wuu iska seexday. cumar oo masaajidka hurda ayay soo galeen. cumar saxaabi cadaalad dadka muslimiinta u sameeyuuha, masaajidkaasuu iska seexanayay, laakiin isagoo masaajidkaa jooga ayuu haddana nin mubajaloo la weynaynayo la ixtiraamayo u yahay. cumar oo hurdo markuu arkeen ayay fadhiisteen oo aan rabin inay toosiyaan. halkaasaa la iska fadhiistay markay arkeen cumar inuu jiifo. hurmuzaan baa wuxuu yidhi war ninkaynu raadinaynay mee? waxaa la yidhi huwa daa kalkaa hurda. madaxweynihii waddankan dhan ee beershiyaba soo qabsaday ee uu ka yaabanaa
ayaa la daydayayo wuxuu noqday nin meel hurda dabeetana su-aal buu weydiiyo wuxuu yidhi ayna xarasu wa xujaabu maye kuwii ilaalinayay iyo sekreteerada iyo brotokoolada iyo wixii ka horreeyey xaggay ku maqan yihiin iyo kuwii wax ka celinaya wixii oo dhamme xaggay jiraan baa la yidhi waxa la yidhi xaras iyo xujaabtoona ma leh waxba male magaaladiisu iska dhex joogaa ushiisuu sitaayo wuxuu doonana ushuu ku toosiyaaba waxay yidhaahdeen weer taarikhyahanadu ay sheegaan bay yidhaahdeen buu hurmusaan markaa ku dhawaaqo oo ah caddalta fa amminta fa numta waad cadaalad samaysay dabeetana nabad baad heshay dabeetana waad iska seexatay alcadaala in dowladda lagu kacayo inay tawradi dhacdo daaye ninka halkaa marayaan cidi odhanaynin ila xaddin maa cumar maxaan cumarkii koowaad u sheegaya ama raggii waaweynaa war dowladahan gaalada ee hadda nool qaar ka mid ah ayaa ra-iisul wasaarayaashoodu intii aan 11 sebtembarada iyo waxaana dhicin tareenadayna la fuuri jireen tareenka caadiga ama maqaaxida caadiga isagoo ra-iisul wasaaruhu ka shaahaya ama wasiirku ka shaahaya aad ugu imanaysaa bale ma qabo nin madaxu caadiya weeyaan walaa askar baa daba ordaysa walaa cid baa daba socota walaa meel baa loo xidhaya waa qof caadi oo aad dukaanka ka wada adeeganaysaan cadaaladdu waxay keentaa markaa inuu qofku muxtaram noqdo in imaamka muslimiinta ama madaxda muslimiinta qiyaadada laga dambeeyo cahdigii cumar bin cabdilcaziiz nin caalima faadila buu ahaa madaxa ayaa cumaashiisa mid ka mida buu waraaqu qoray waraaqdaasi waxay ka mid tahay bay culammadu yidhaahdaan waraaqaha taariikhgalka ee umaradii dambena xataa isticmaali jirtay waa waraaq erayo yaroo kooban ku qoran laakiin macnaha aad u ballaadhan sida wuxuu u qoray qad kahura shaakuuk waqalla shaakiruuk faima cadalt waima اctazalt wاsalaam waraaqdu waa intaa uu madaxweynuhu soo qoray wuxuu ku soo qoray kuwii kaa ashtakoonayay way tiro bateen ninkii waaligee madaxda abu wuxuu leeyahy qolada kaa ashtakoonaysa waa tiro badantay kuwa ku mahadinayaana waa yaryihin ee ama cadaalad samee ama iscasil buu yidhi nabaday buu ugu jawaabay markaa wasalaam caalamulislaami markay muslimku muslim ahaa nidaamku saasuu ahaa qofka in la yidhaahdo war shakwadaada tiro badatay cidda ku mahadinaysaana waa yartay koox yaroo manfaciyiinoo kugu ag wareegsan weeyaan wax kula cunta intan ku rixinaysaa ee ama cadaalad samee ama iscazil waxaa la yidhahdaa xims caamilkeedii baa waraaqu soo qoray xims waa alkuufa suqraa bay yidhahdaan taarikhyahanadu kuufi waa meeshii ugu ashtakada badnayd ee madaxda ashtakaysa ximisna waxay yidhahdaan kuufada yar baa la odhan jiray taarikhyahanaduna ka warramayaan xims baa waraaq looga soo qoray caamilkeedii iyo cumar bin cabdilcaziis wuxuu ku yidhi magaaladii way dunduntay in la islaaxiyana way u baahan tahay waraaq yaroo kooban buu u qoray maxaa ku qoran dhowr erayoo kale imaamu tartuushi suu soo warinayo siraaj ulmuluuk xasinha bilcadli buu ku yidhi wanaqin turuqaha min aljuur waasalaam magaalada miyay dundunsan tahay ha magaalada waxaad qalcad uga dhigtaa ku hagaajisaa buu yidhi cadaalad waddooyinkeedana dulmigoo aad ka qaadda ku nadiifi buu yidhi aniga waxay khuseeyaa buu leeyahay muhimka ee ahay inay cadaaladina jiro dulmina aanu jirin waxaynu tilmaamaynaa markaa waxa weeyaan hawraadka iyo digdigtan iyo waxan buuqani si aanu u dhicin madaxdu ama waa inay cadaalad samaysaa ama mas-uuliyaddu waa xil culuse waa inay iskaga tagtaa iyaga aakhiradood iyo adduunkoodaba saasa u roon xataa waxaad moodaa mas'alada maanta caalamka gaaladu marar badan inuu kaga fiican yahay qolada muslimiinta ah garanna maayo arrimuhu goortay si ay isu dabarogeen caalam ilgarbi umaad maqlaysaa madaxweyne iscasilay iyo nin madaxoo ceebi ku soo baxday ama wax ku soo baxay 20 jeer kan hadduu ceeboobo ma ogola inuu haye unu taagneedaa buu rabaa madaxdu waxa ay u baahan tahay marka almuxaasaba waalcazl qiyaadadu waa caqdu rida maaha caqdi qasaba waxay fuqahadu yidhaahdaan cidda gunuda
inuu madax noqdaaba gunuda in la casilana waa wax fudud cidda gunuda caqdurida hadduu cidda gunuda in madax laga dhigo baa gunuda in la rido bal aneegna cumar qawaaciddu ku dhaqmi jiray qaar ka mid a markaasaynu dareemaynaa cadaaladda iyo madaxda sida loola dhaqmaa noocay tahay qawaacid cumariya wax la yidhahdaa jiro caana maxaa ka mid ahaa bay yidhahdeen weedhaha cumar lagu yaqaanay mata stacbadtum الnaasa waqad waladatum ummahaatuhum axraara nimanka madaxda ee wulaadda waagaa joogtay waxay u dhigdhigmayeen baynu odhan karnaa dee dowladahan maanta jira ilantane khaliifo male maanta waa iska duwal yararoo meelaha ka jira waa waaliyadii meelaha xukumi jiroo kale khaliifo islaamiya ma joogtee wulaaddaasi cumar wuxuu kula dhaqmayey muslimiinta inaanay wax dhiba u geysan qof muslima inaan la dulminin ama madaxnimo inaan loogu xoog sheeganin qaacida qawaaciddiisa ka mida bay qaacidada labaad ee qawaaciddiisa ka mid a waxay ahayd nimanka madaxda inuu xisaabiyo yidhaahdo min ayna laka haada qol waraaqu qoro wuxuu yidhi adoon waxaysan baan ku oga haddana waxaa laygu yidhi xoolaad foofsatay bal halkaad ka keentay ii soo sheeg buu leeyay waa amiir dhan oo masar oo dhan xukuma camar ibn alcaas ayuu leeyahy kaana cahdii bika an laa maala cindak waxla-aan baan kugu ogaa haddana in xoola kuu faafeen baan maqlay buu leeyahy min ayna laka qaacide caamoo cumar u yaqaano bay ahayd bal qaacidooyinkan siduu u isticmaali jiray qaar ka mid aan idin tusiyo ama siduu u ilaalin jiray bulshada dareenkeeda iyo ummadda xataa mararka qaarkood baa wulaadda la dulminayo dad ay ashtaka beena ka keenayeen siduu ula dhaqmay iyadoo ashtakadu ay been tahay uu garanaya cumar inay been tahay kuufa waxay ahayd magaalo dhib badan reer kuufa qolo ka mida baa isu tagtay oo waxay idhaahdeen sacad aan ashtakayno sacd ibn abi waqaas saxaabigii la odhan jiray casharat almubashiriin ka mid ahaabaa madax u ah sacad baa war laga diray cumar baa laga soo ashtakaynaya laakiin waxay ogyihiin cumar iyo siduu wax u qiimeeyo waxay la eegteen darfi yaro xasaasiya oo waa maxay waa wakhti gaaladu ayse soo urursatay muslimiintuna ciidamo ay ururinayeen dagaal lagu sii socdo khatara bay la eegteen wakhtiyadaasna muslimiinta kelmadoodu inay kala jabtaa waa wax adag waa dagaalkii nahawund la odhan jiray markuu dhacayay nahawund waa dagaaladii ugu waaweynaa ee saxaabadu gasho ka mid yihi waa beershiya dagaalkii ugu dambeeyaan rajaynayaa ee xuduudda lagaga saaray dagaalkaasi markuu dhici doono oo gaaladu isa soo urursatay oo aad u xooggan yihiin oo muslimiintu marka ay ciidamo ururinayaan bay ashtakadan geeyeen waxay u geeyeen cumar waxaa laga soo gaadhsiiyey cumar oo ninka madaxda noo ahi cadaalad wax kuma qaybiyo wax ma sameeyo say u soo wadeen bay xataa idhahdeen salaadana ma yaqaano haddaba saxaabigii nebi maxamed la noolaa ay idhahdeen laa yuxsinu salaana xataa dadka wax sheega de markasta madaxda waxaan laga sheegaya weligaa run ha wada moodi madaxda sida qofka caadigaaba wain ja'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu baa la yidhi walaalka muslimka ee madaxda isagaaba ixtiraam dheeraada sii leh in la hubiyaa mudan dadku waxa jaraa'idku qoranaya waxa meesha qortaba waa buunburinaya waxa la yidhi maha wax soconaya cumar wuxuu lahaan jiray nin la yidhaahdo moxamed ibnu maslama saxaabi la odhan jiray oo la yidhaahdo wuxuu u qaabilsanaa waaliyiinta iyo waa mufatish caama baynu odhan karnaa waa tacbiirka cusub ee malaa'imka leh ninkan soo taxqiijiya soo baadha madaxda gobollada haysato oo dhan moxamed ibnu maslama buu soo diray wuxuu yidhi qadiyadda iga warkeena moxamed ibnu maslama baa magaalada yimi masaajidii magaalada buu si calana u tegey madax meel hoose lagula hadlayo waxaas ma jirto masaajidku iska taagaya sacad ibnu abi waqaas baa lay soo diray maxaa kaga cabanaysaan masaajidku tagaaba waxay dhahaan khayr waxaan ahayn kuma ogin saxaabigii nebiga si fiican buu wax u maamula khayr waxaan ahayn kuma ogin qoladii mushkiladda soo samaysayna masaajidda way dhegaysanayaana way aamuseen dadkii kalena waxba waa sheegi waayeen markii dambe masaajid reerkoodu leeyahay la isla yimi oo qoladatan ay ku badnaayeen bani cabas meel la yidhaha masaajidkoodaa la yimid dabeetana wuxuu yidhi saxaabigii taxqiiqa samaynayay ilaahay baan idinku dhaariyey nin waxooga waxa qarinin intuu meesha istaagayba wuxuu leeyahay moxamed ibnu slama ilaahay baan idinku dhaariyey nin waxoogow waxa qarinin usaamata bnu qataada nin la yidhaahdo oo nimankan mushkiladda wadaya ka midaba istaago markaasuu yidhi mar haddii aadna dhaarisay
si siman wax uma qaybiyo, dagaalka ma qayb galo, salaada ma hagaajiyo, waxbuu akhriyo. wixii markuu maqlay ayuu soo kaxeeyey. bas intiinan iyayna keena baa la yidhi, iyo sacadba madiinaa loo dhaadhiciyey, cumar baa loo geeyey, wixii bay akhriyeen. cumar sacad wuu casilay. sacad markay qoladii wixii sheegeen, sacad nin awliyada ilaahay ka mida buu ahaa, oo hadduu gacmaha kor u qaado la cabsado, mustajaabu dacwa ah. ilaahay buu baryo, wuxuu yidhi bay yidhahdaan culamaai taariikh, allahuma in kaana qaalaha kadiban wa riyaa'an wa sumcatan faacmi basarah wa aktir ciyaalah wacarridu limucdalaati lfitan buu yidhi baa layidhi. ilaahayow hadduu been ay tahay waxa uu sheegay, oo istustus iyo ismaqashiis iyo madaxdan ku cadaadiyun dee uu uga jeedo, ilaahayow indhaha ka rid buu yidhi, oo carruurtiisa badi, oo fitanka iyo mashkilaadka u bandhig. intii uu sheegaa ku dhacday sacadkan. waa indhabeelay, waa gaboobay, 10 dumar uu dhalay, meelahaas haddana hablaa yaryar eriyan jiray. kan intii uu ku dhacay, intii uu sacad ku habaaray ayaa ku dhacday. cumar sacad ibn abi waqaas dar'an lilfitna fi lmujtamac, iyo inuu gooyo maadatuljadal iyo qiil iyo qaalba, maadaama goob dagaal loo sii socdo mashkiladdu ay tiro badan tahay, ayuu sacad casilay. sacadka la casilaya waa kuma? sacad waa saxaabi qiimo leh, waa 10 almubashiriin buu ka mid yahay. waa ninkuu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ku lahaa, irmi fidaaka abi wa ummi. cid kale uu ku yidhi weedhaasi ma jirta baa la yidhahdaa, aabbiyo hooyaan kugu furtaa, sacad unbuu ku yidhi baa la yidhaahdaa. sacad ibn abi waqaas waa ninka lagu tilmaamo awal sahm fii sabiili illaahi loo tuuro, waa ninkii koowaadee tuura. sacad ibn abi waqaas cumar markii uu geeriyoon doono wuxuu yidhi dada waxa ogaataan, xadiidka bukhaari ku yaalla, inaanan sacad cajzi iyo khiyaamad midna u casilin. sacad inaanu nin karti daranoo wax maamuli kara aanu ahayn inaanan u casilin, inuu wax khiyaamayeyna inaanan u casilin, taa ogaada buu leeyahay. ee muslimiintun kelmadooda inaan mideeyaan u casilayay. walidaalika wuxuu tilmaamayaa 60 nin ee madaxnimada muslimiinta u sharaxan buu ku daray. sacadkuu ka soo casilayeen halkaa, haddana wuxuu ku darayay 60 nin ee markuu dhintay uu yidhi ha laga doorto madaxweynaha muslimiinta ayuu ka mid ahaa. waxaan leenahay cumar wuxuu raadinayay bulshada muslimiinta iyo isku xidhaankeeda. waxa uu tilmaamayaa caqdiga ka dhaxeeya bulshada muslimiinta inuu yahay kalgacal iyo walaalnimo iyo kalsooni, inaanu marnaba burburin. madaxnimadu noocaasi ku macaantay. madaxnimadu waxay ku macaantay inaanay noqonin almughaalaba walmushaaxana, meel xoog lagu kala qaado iyo isqabqabsi iyo digdig, waayo taasi ma keento. cadaalada aasaasna waxa uu ah caqdigu inuu ku salaysay waxa dadka muslimiinta isku xidha, wax raalli laysaga yahay iyo walaalnimo. war salaad baa ugu yaroo nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, xadiidku sheekh ilalbani xasanka saxiixa uu ku tilmaamayo bimajmuuci turuqi, man ama qawman wahum lahu kaarihuun. ninka dad salaad tukiya buu nebigu yidhi iyagoo karahsan, maxaa ku dhaca? salaadiisa halkan laba dhaafiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. sheekh maxamed haddaynan rabin inuu ina horgala maaha, waa inuu ka banneeyaa meesha. nebi maxamed wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, man ama qawman wahum lahu kaarihuun. ninka dad tukiya salaad iyagoo nacaya oo aan doonaynin salaadiisu tarquwadiisa ma dhaafto, kalxamihiisa ma dhaafto baa la yidhi. oo kan masaajid baanay dhaafayna ka dadkoo dhan yidhi waa idin hor fadhiyaya ka warran, iyadoo aan la rabin. xaggay isaga dhaafaysaa markaa? hal masjid kii hor fadhiistay laga kicin kari waayaa intaan lagu tilmaamay, laakiin ka ummadoo dhan yidhaahda waan hor fadhiyayaa kici maayo. maca daalika aan kurhigani waa kurhi sharciya inuu yahay, waan iska nacnayo isku qolo ma nihin iyo reer hebel inayna maamulaha baabkaa laga warrami maayo. waa kurhi sharciya, waa in wax shareecadu diidan tahay inuu madax ku noqdaa ay meesha taallo, ama imaam uu ku noqdaa inay meesha taallo.
sacad ibn abi waqaas oo casharatu lmubashiriin ka mid ah. waxaan rabaa waxaan si cad u soo qaadanaya madaxdeennu inay barato muranku hadduu bato inuu iskaba tago. sacad mar labaad baa haddana la casilay. waxaa casilay cuثmaan ibnu cafaan wakhtigiisii. kuufa mar kale haddana madax looga dhiga. marka kan maxaa lagu casilay? culamada taarikh waxay dhahdaan markan labaad ee sacad la casilay waxay ahayd kuufa markii dowladdii islaamiga ahayd ay ballaaratay, shaqooyinka waa la qaybqaybiyo, wadaa'if badan baa laga dhigay. madaxnimada gobolka wilaayada waxaa haystay sacad ibn abi waqaas. baytulmaalkana qasnada dowladda iyo xoolahana waxa gacanta loo geliyey cabdillaahi ibnu mascuud saxaabigii kale loo odhan jiray. sacad ibn abi waqaas baa baahday, bal ninkaa madaxdee lacagta u baahday adaarag. wuxuu u tegay cabdillaahi ibnu mascuud oo daynisii buu yidhi, muddo qabsaa la yidhi, aad ku bixinaysa daynta. mudduu qabsaday, dayn muddo leh ayaa ninkii meeshaba maamulayay la siiyey, yaa siinaya cabdillaahi ibnu mascuud. wakhtigii markay gaadhay buu cabdillaahi ibnu mascuud yima wuxuu yidhi lacagta iska keen sacadow, baytulmaalkaa lahaaye. sacadna markaa lacag ma hayni, wuxuu yidhi waxba ma hayee alla iga sugo. lagaa sugi maaya buu yidhi cabdillahi ibnu mascuud, ee markaad dhigaysa madax waa tahay, laakiin xaq uma lihid xoolaha muslimiinta inaad qaadato. dayn baad gashay, wakhti bay lahayd, wakhtigii bay gaadhay, waad bixinaysaa. sacad iyobay ka taagtaagantay iyo cabdillaahi ibnu mascuud. cabdillaahina wuxuu leeyay lacagta waa la keenayaa, sacadna wuxuu leeyay wakhti. sacad markii dambuu xagga rabbi u jeestay oo gacmaha korka u taagay. laakiin sacad hadduu gacanta taago dadku aad bay uga cabsan jireen. cabdillaaha arkay sacad oo gacanta sii wada, allahumma markuu yidhi ayuu wuxuu ku yidhi waylak qul khayran aw usbut. waa rooge ama khayr ku ducee ama gacanta dhig. sacad gacantuu ka daayey. labadoodii haystaa loo geeyey cuثmaan ibnu cafaan. cuثmaan mar kaluu sacad casilay. imaam min a'immati اlmuslimiin oo sacd ibn waqaasa oo min alcasharati اlmubashiriina ayaa lagu casilayaa daynuu iska bixin kari waayey. imaam min a'immati اlmuslimiin oo sacd ibn waqaasa ayaa muslimiin murmay daraaddood la yidhi si wada joogga dadka muslimiinta ugu fiicnaado inuu ka dhaadhaco. madaxdu markay noocaa tahay ayay dadkuna shacabkuna dadnimada dareemaa iyo karaamada u dareemaa madaxdoodu inay yihiin dad la weyneeyo oo mubajaliin agtooda ku ah, oo muxtarimiin oo samc iyo taaca leh, oo la aqbalo laga dambeeyo. axmed ibnu xambal xadiidka warinaya imaamu shaakir oo xasan ku tilmaamayo, yani waa weedhs uu leeyahay cumar bnu khadaab baa khudbadeeyey isagoo dadweynaha muslimiinta la hadlaya. khudbadiisa waxaa ka mid ahayd, wardadow madax baan idiin soo diray. shacabkii buu la hadlayaa. madaxdaa idinkumaan soo dirin buu yidhi inay idin garaacaan iyo inay xoolaha idinka qaataan, laakiin waxaan idinku soo diray buu leeyay inay diintiinna idin baraan iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam. ee faman fucila bihi shay-un siwaa dalika falyarfachu ilay. ninkii waxaan ahayn madaxdaasi ay ku samayso aniga ha ii soo sheega buu yidhi. ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee waan uga goynayaa buu yidhi nin kastoo madaxa ama dowlad haysta ama meel ka sokaysa haysta oo muslim kale wax ku sameeya, waan ka goynayaa buu yidhi. camar ibnu caas oo masar markaa xukuma, camar ibnu caas saxaabigii la odhan jiray oo masar markaa xukuma baa wuxuu yidhi yaa amiira almu'miniin, waa madaxda la leeyahay waxba laga jarayaa. camar baa hadle wuxuu yidhi amiiru lmu'miniinkiiyow, ma nin madaxda muslimiinta ka midi shacabkiisa muslimkaa mid ka mid ah haddii uu edbiyo oo uu uleeyo mayaad ka goynaysaa? markaasuu cumar wuxuu yidhi ii waladii nafsu cumarin biyadih idan la aqusannahu minhu. haa buu yidhi ilaahay baa ku dhaartay waa ka goynayaa. oo sidaanan uga goyn buu yidhi anigoo arkay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh nin walba wixii aan kuu geystay iga gooso. nebi moxamed oo naftiisa qisaasayaan arkaye madaxda saan u sii daayaa buu leeyahy waxay dadka u geysato. war hooyaygo eraygan u fiirsa haddaba. cumar wuxuu leeyahy war dadka muslimiinta ha garaacina yay dulloobine. dowladdu hadday باورkeeda isticmaashay iyo askarteeda iyo dadka burburiso oo jajabiso xidho oo mabaaxista lagu tuuro dadkuba wuu dulloobayaa. marka dad ibdaac iyo sharafti iyo
caqligu ku jiro noqo qof baqaya caqli kuma jiro dawladda ummadda ka talanaysa hadday noqoto dawlad laga cabsado ummadda dhan way duloobaysaa cumar wuxuu leeyahay war hooya ha garaacina dadka muslimiinta ayay duloobine walaa tujammiruuhum fataftanu war ha gubina buu leeyahay markaasi aydan u fidnaynin haddaad dadka toorjar garaysaan warar may diinta bay idinka baxaan buu leeyahay fitnoobaan walaa tamnacuu xuquuqahum fatukaffiruuhum buu leeyahay war xuquuqdooda ha u diidine yay diinta bay idinka tegine ha dhibina dadka buu leeyahay meelaha kaymaha iyo waxaana hadajinayaan cadowgu haleeline si ay u fahamtaan qadiyaadkan tusaalayaasha waqtigii cumar baan idin siinaya in sha allah waxaan isku dayayaa in badan sanadkooda waxyaabaha la qurxiyay inaan tilmaamo sanad xasana waxa qisaska lagu soo arooriyay waxa ka mid ah jariir ibn abdullah al-bajali ayaa wuxuu leeyahay rajul muslimiinta ka mid ah oo la socda abi muusa al-ash'ari iyo ciidankiisa oo nin dagaalada aad uga adag ahaa ayaa dagaal badan sameeyay dabeetana cadowgu markii uu dagaalamay kadib uu soo noqday wixii uu xaq u lahaa ee uu furtay ghaniimadii ayuu abi muusa nusiye mu wada siinin abi muusa al-ash'ari ayaa bacdu sahmihi qayb ka mid uu siiyo waxbu ka reebay mala un dana kale uu rabay inuu ku fuliyo daradeed buu uga reebay ninkiina nin adag buu ahaayey wuxuu yidhi qaadan maayo ama waxaygii oo dhan baad wada keenaysaa abu muusa ama qaadan maayo la tag abu muusa arrintii uu ka cadhoodayoo ninkii waa la karbaashay 20 jeedar la waa lagu dhuftay timaana waa laga xiray ninkii timihiisii buu iska soo guntaday laga xiray dabeetana uu iskaga yimi meeshii madiinuu yimi cumar bin al-khattab oo meel fadhiyuu soo galay baa la yidhi jariir ibn abdullah al-bajali saxaabiga la yidhahdee warinaya warka kan baa wuxuu leeyahay cumar dadka ugu dhow baan ahaan jiray dabeetana ninkaasaa intuu soo galay ayuu jaabkiisa gacanta galiyo timuu ka soo saaro cumar buu laabta kaga dhuftay tima uu sito waa kuwii madaxiisa laga xiray dabeetana wuxuu yidhi lawla annaar eraygaasoo quru yidhi cumar baa wuxuu ku yidhi sadaqt lawla annaar sadaqa wallahi lawla annaar يعني نكان وحا وكعب طيونا وانت او سو سعدي عذاب كبغيون وركيسي بو كوربا امير المؤمنين وبير ابي موسى الاشعري صحابي لو رجل وحا سيغو سمي وركيسي بو كوربا عمر وركيسي wax badan ba maaha ma intaas aha waraaqi kana buu waraaq buu qoray abi موسى الاشعري السلام عليك أما بعد فإن فلانا أخبرني بكذا وكذا فإن كنت فعلت ذلك في ملأ من الناس فعزمت عليك لما قعدت له في ملأ من الناس حتى يقتص منك وإن ورابو ورا عمر ولي هي موسى صلاني كركاغا تو انت كدب بموسى الاشعري منك كان هذا waxaan ku samaysay meel dadku wada joogo idinkoo jooga waxaan ku amrayaa meel dadkoo dhan fadhiyaan inaad u fadhiisato isna intii kugu sameeyo waa ninkii meesha ba haystay ayuu cumar wuxuu leeyahay fadhiiso adna 20 ka jeeda la lagu dhufanaya tibaana waa laga xiirayaa haddii aad meel gaar intaad la tagtay aad ku samaysayna waxaan ku amrayaa iminkana intaad meel gaar la tagtay intii kugu sameeyo yani ninka kan wuxuu leeyahay dadnimadiisii buu cumar tijaabinaya in loo soo celiyo xataa ma aha inaad ka gudato oo qura ee waa inaad hadduu meel fagaaraha kaaga sameeyey fagaare kaga gudo adiguna markii la yimi ee waraaqdii loo keenay ayaa dadkii baryeen ninkii waxay dhaadeen war waa saxaabigii nabiga ee ceebaynina iska cafi baadiide alla marsiin waay ayse soo tahay saxaabiga iska cafi waxba alla marsiin waay abi muusa al-ash'ari wuxuu iska daayay halkaas uu fadhiistay inta kugu dhuftay goosaba la yiri 20 kaagi ulood iyo tamaxiirkaagi ba samayso markii uu isla soo dul taagay ee warkay cid ka mancinaysa inaanay jirin ee uu sina awoodo inuu intiisii goosto ayuu gacmaha kor u taagay cirka wuxuu yiri allahumma inni qad afawtu ilaahay haddaan u dhaafay haddaba أول مدح بيسكني جدا ويسموتيني إنه يجحق بديه هذا وحنا ركابه ليه ده محيي لا يقولي
أول مدحض الضعف يكن ضعف به لكن إمكان أول بولا يوقع هذا مركز وحلي اللهم إني قد عفوت وأن ضعف قصة كلام موسى عن سواروري وهي سنة كذا علماء التاريخ رقم إذا كنت المامين حسن طاي عبد الله بن عمر بن الخطاب أيها وحلي أنا والسفر كتير عمرنا نلا صعده أيها نن بوميل كارك عمر صعد كصور ديرين يا مركز عمر وحلي ورنكاس إنه يندب الصعد أبانو ملاين يا بلان سجنه وافريسي نيف كيسي عمره ووتشوكي دبتنا ننكي بايمي markuu Umar isla soo taagun buu oo himbilaaba Umarna ninkan buu ka naxay sidan uu iyo Umar laftiisa ilmeeyaa la yiri tabatana wuxuu war waa ma shaanuk war arrinkaagu waa maxay wuxuu yiri amiirul muuminiin anigu khamraan cabay buu yiri dabatana Abu Musa al-Ash'ari wuu jeedalo khamrigii wuu iga gooy jeedalkii xaq mudna laakiin wajigana wuu madow buu iga mariyay magaaladana wuu igu wareejiyay dadkana wuxuu amray inaan layla hadal ninkan wuxuu sheeganay inuu khamri cabay wuxuu kaloo sheeganay inta magaalada la mariyay in la yiri ninka ayaan cidana la hadlin kadib buu yiri ninkaasi markuu waxa igu sameeyay waxaan ku hamiyay buu yiri inaan seeftayda qaato oo madaxa ka gooyo ama inaan adiga ku imaado oo meel aan Abu Musa joogin aad igeyso meel kale aad musaafuriso igeyso mararka qaarkoodna waxaan ku hamiyay buu inaan iskaga bakin tago dhulka gaalada aan dago meesha muslimka ba inaan ka tago dhul gaaleed dago Umar baa oo dabatana wuxuu yiri marnaba ima farax galinaysa inaan waxa soo dhan helo oo horta gaalo u tagtay ima farax galinaysa buu Umar yiri ee haddaad ka mid tahay kuwii khamriga cabay war dadku ba jaahiliyadii khamriga waa wada cabeen buu yiri teewaana laga gooyay wixii Abi Musa al-Ash'ari buu waraaq u qoray wuxuu ku yiri hebel baa yimi ninkaas ayima waxa ka sheegtay ee kitaabkaygaasi markuu ku soo gaadho dadka shiriya waxaad u sheegtaa inay la fadhiistaan waxna ka gataan lana dhaqmaan hadduu ka toobad keenay wuxuu sameeyay markhaatigiisana aqbala darna wuu soo siiyay 200 dirhamna ninkii wuu siiyay riwaayad kale oo xasan laftooda qaar kale waxay sii tilmaamayaan waliba dheeraad bay ku sii darayaan kullu dalik waxay tilmaamayaan Umar wuxuu diidanaa madaxdu inay dulaysato shacabka muslimiinta inaan qof muslima la xidhi karin la garaaci karin la tumi karin la caayi karin la maagi karin la dhici karin dadku markaas ay dad sharaf la noqonayaan iyana markaas ay madaxdooda ka dambeynayaan waxaynu tilmaamaynaa madaxdii uu Umar doortay waxay ahaayeen madax noocaas ah xoolaha Umar wuxuu ugu dhaqmayay dadka muslimiinta ah إن الله جعلني خازنا حديث الإمام أحمد يغير كيبا ورينيان أكرمنا أولي أكرم ديال عمر والصحيح أولي إن الله جعلني خازنا لهذا المال عمر وحول حولها كان إلهي إلالي يقدق قسنتي بالله يقدق يا وقاسما له إيانا ضدك وقيب قيبيه هذا أنتو قيب قيب انت كان نقضو يريد بل الله يقسمه إلهي باقيبنا إياه عمر وحول ورنشري وحان دين شيء يا أبو يريد حولها وحي يقبنان وأمضى دنكي مامولي مرة أن شيلال كي حدا يمينان حقاقي حدا هي حجك نافان حجي عمرضا كتاقو هي نن قريش كمدي وحاوعنو وآن فقردنا هين غنيدنا هين نن قريش كمدي ودحدحادي وحو كعنو وننا كعنو بولي وحاو تلمامية dadka muslimiinta hadii cadaalad lagu dhaqo oo dulmiga siyaasiga uu joogsamo hadii farwadoodii hantidooda si cadaalad oo siman loogu qaybiyo thawradii ma dhacayso iyo dhibtu toona maalma kamida ayaa khudbadu waxa akhriyay waa xadiis Abu Ya'la iyo Tabrani fi al-Kabir wal-Awsat usar iyo Sheikh al-Albani xasan ku tilmaamayo معاوية خطبة جمع مركب مدحوينها مسلمين تاها معاوية وحيري خطبة جمعين تستاغي إنما المال مالنا والفيء فيئنا وارحولها أنك أسكال بيدها دان مدح ديني فيقنا أنك عليه
cidina laba hadal dadkii waa la dhegaystay uu iska tegey jimcihii labaad buu haddana khudbadeeyey sidiisi leeg buu wuxuu yidhi almaalu maaluna walfayu fayuna xoolaha annagaa le faygana annagaa le buu yidhi dabeetana cidina ma radinina wuu iska tegey jimcihii saddexaad buu haddana istaagay markaasuu yidhi almaalu maaluna walfayu fayuna war xoolaha annagaa le buu haddana jimcihii saddexaad ku khudbadeeyey nin dadkii masaajidka soo xaadiray baa istaagay oo wuxuu yidhi kalla bal ilmaalu maaluna walfayu fayuna nin muslimiintii dadkii soo xaadiraa istaago wuxuu yidhi waxaad sheegtay waxba kama jiraan xoolaha annagaa leh haddaanu shacabkii muslimiinta aanahay dadka muslimiinta ah faygana annagaa iska leh man xaala baynana wa baynahu xaakamnaahu biasyaafina buu weliba yidhi intuu istaagay cidda isku dayda inay annaga iyo xoolahaana kala dhex gashana seefaha iyagaanu kaga warkeeraynaa buu yidhi waa amiirulmu'miniinkii ninka caynkaa lagu leeyahy ninkii isku daya buu yidhi xoolaha iyo annaga inuuna dhex marana seefteedaanu kaga warkeenaynaa waa iska fadhiistay ninkiina khudbaddiisii jimce markuu dhammaystay imaamkii muslimiintu ee salaaddii dadkii uu tukiyey ayuu yidhi war ninkii igu yeedha waa loo yeedha sariirtii madaxnimaduu dhinaceeda fadhiisiiyey intuu u yeedhay ayuu sariirtiisii madaxweynaha ama kursigiisii unbaa la fadhiisiiyey ninkii soo galay masaajidka yidhi xoolaha annagaa iskale adigu malihidda dabeetana wuxuu yidhi dadkana igu yeedha dadkiina waa loo yeedha mucaawiya bnu abi sufyaan wuxuu yidhi jimcii hore waan idinla hadlay oo weedhaasaan idin idhi cidina iima jawaabin jimcii labaadna waan idinla hadlay oo weedhaasaan idin idhi cidina iima jawaabin jimcii saddexaadna waan idinla hadlay oo weedhaasaan idhi oo cidina iima jawaabin jimcihii saddexaad baa ninkaas u ii radiyey buu yidhi axyaanii haada axyaahu llah buu yidhi axyaanii haada kanaa i nooleeyey buu yidhi ilaahay ha nooleeye mucaawiya shacabku wax baraya wuxuu u tilmaamayaa maalmaha hore oo dhan dadka buu tijaabinayey dabeetana markii la radiye la yidhi war xoolaha annagaa leh adiguma lihid faygana annagaa leh ayuu wuxuu leeyahay ilaahay ha nooleeye kani wuu i nooleeyey buu yidhi waayo waxaan maqlay buu yidhi samictu rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam xadiidkan buu markaa mucaawiya sheegaya waxaan maqlay nebigoo leh sayaatii qawmun yatakallamuuna falaa yuraddu calayhim yataqaaxamuuna fi nnaari taqaaxuma alkhirada buu yidhi waxaan maqlay nebigoo leh duul baa iman doona intay hadlaan cidiba aanay juuqu odhan in loo wada nacamlaynayo oo naarta ugu daadan doona siday qiradadu u daadato yacni wuxuu leeyahay mucaawiyata bnu abi sufyaan intaan hadle haddii lay radin waayo waxaan ka baqay kuwii nebigu yidhi naartay ku daadanayaan inaan ka mid noqdo laakiin markuu kani radiyey waxaan gartay buu leeyahy inaanan ku jirin kuwii nebigu yidhi maxay naartay ku daadanayaan waa madaxdii muslimiinta oo shacabka baraysa inuu shacabku radin karo oo ninka madaxdaa la odhan karo waxaad sheegtay waxba kama jiraan waxaad sheegtay sax ma aha in la odhan karo waa mucaawiyata abu sufyaan mucaawiya ibnu abi sufyaan weeyaan oo leh xadiidkaa nebigaa igu dhaboobi waaye madaxdu hadday jeclaato wax kastoo ay tidhaahdaba in la yidhahdo waa runtii bale markuu maqan yahay haddii wanaag la rabo in la sheego waa sidii madaxweynuu yidhi haddamaba odhanin madaxweynaha sida yidhi adhi madaxweynaha waxaa ka mid ahay waxaasoo dhammi maaha wax sharcigu sheegay madaxdu waxay leedahay in laga yasan maaha waa in loo ixtiraamaa loo ogolaada laakiin in sida aalihada ama ambiyada loola dhaqmana xaq uma leh walidalik buu wuxuu ina barayaa mucaawiyata bnu abi sufyaan inay madaxdu kuwa la radin karo noqon karaan war muslimiintu waa inay bartaan markaas madax iyo mijaba in laysu naseexayn karo madaxdana in la odhan karo waad qaldantay hantida waa in la bartaa inay ummaddu leeday inaan la burburin la jejabin dadkaa cadhoodaa lagu odhanaya hantidii ummaddu lahayd baa la bursiyey loo burburiyaa dadkaa leh imaamu muslim saxiixiisa wuxuu ku soo saaray cumar bin alkhadaab ayaa wuxuu waraaq u qoray adarabijaan meesha nimanka la yidhaahdo ee eeran dusheeda ah muslimiintu markii halkaa maraysay ninkii haystay cutba ibnu farqad saxaabi nin la odhan jiray oo maamulo ka ahaa ayuu waraaq u qoray waraaqda cumar muxuu ugu qoray yaa cutba inahu laysa min kadika walaa kadi abika walaa min kadi ummik waar cutba buu yidhi xoolahaad haysaa waxaad xoogsatay maaha
aabbahaa miduu xoogsadayna maaha, hooyadaa waxay xoogsatayna maaha buu leeyahy. waa ninkii madaxda abu cumar sidaa ku leeyahy. ee faashbici lmuslimiina fii raxaalihim mima tashbacu minhu fii raxlih. waxa aad cuntee ka dheragto muslimiinta kalena waa inay ka dheragtaa buu ku yidhi. wayaakum watanacum, waxaan idinka digayaa buu yidhi inaad nicmada iska badbadisaan iyo dhargaaleedka inaad xidhataan iyo buu yidhi dharka xariirta inaad isku xidhxidhaanna waan idinka digayaa. xadiiskii saxiixu muslimku ku yaalla. madaxdu marka caynkan loo qiimeeyo waxa weeyaan waa shaqaalaye. waa kii taarikhyahanadu waxay soo qoraan abu muslim alkhawlaani. abu muslim alkhawlaani waa awliyadii muslimiinta hore nin ka mid ah, nin taabici ah cahdigii nebiga noolaa. ninkii aswad alcilsi ninkii sheeganayey nebinimada intuu dabka ku riday ayaa dabka ilaahay sidii nebi ibraahim u bakhtiye u ka baxay. abu muslim alkhawlaani inta dab lagu riday ayuu guban waayey. dabeetana kii nebiga sheeganayay sidii gubi kari waayey bay yidhaahdeen nebinimadu kaa fasaadinaya waddanka ka eri. waa la saaray markaasi. madiine wuxuu soo galay iyadoo nebi maxamed dhintay calayhi salaatu wasalaam oo xilligii abibakar ay tahay buu soo galay. markaa saxaabi ma noqone taabici buu ahaa mukhadarama. abi muslim alkhawlaani baa tegey baa la yidhi shaam. dabeetana wuxuu soo galay mucaawiye. dabeetana wuxuu yidhi assalaamu calayka ayuha alajiiru, nabadi korkaaga haataniyow shaqaalo ahi buu yidhi. waa madaxweynihii amiirkii muslimiinta. qoladii ag fadhiday baa waxay tidhi alamiiru ya aba muslim. abi muslima waxaad tidhahdaa amiirka. markaasuu wuxuu ku celiyaa assalaamu calayka ayuha alajiiru, shaqaalow nabadgelyo korkaaga haato. markaasay yidhahdeen alamiiru. mucaawiya markaa wuxuu ku yidhi bay yidhaahdaan dacu aba muslim huwa aclamu bima yaquul. war abu muslim iska daaya, abu muslim alkhawlaani isagaa og waxa uu sheegaye, isagaa idinka ogaal badana iska daaya. dabeetana abu muslim markaasuu waaniyey mucaawiye. waana dheero ay ka mid tahay. war wuxun baad la mid tahay buu yidhi nin xoola la raacsaday. ninka xoolaha aad raacsataa hadduu teeda liita wadaxda ka gooyo hagaajiyo oo gaadhsiiyo oo ay naaxdo oo fiicnaato, hadhow mushqaayadiisana waa la siiyaa, abaalmarin dheeraadana waa loogu daraa buu yidhi. ninkaad xoolaha u dirataa hadduu te liidatana cidla kaga tago ta kalena sidii u weedhaya ay dhuubato oo bakhtido waa la ciqaabaa buu yidhi, waxna lama siiyo. xoolaa lagu raacsadayo waa sidaad ka yeeshaa buu ku yidhi mucaawiya. ummaddan lagu raaciyey waa sidaad ka yeeshaa buu u tilmaamaya. cumar bin alkhataab wuxuu baray dadka muslimiinta inay ku dhaqmaan qaacidaa madaxda in la weydiiyo min ayna laka haada, war waxaan xaggaad ka keenta. wakhtigo aan idinku tiro badiyey daraaddeed si kooban baan u odhanaya. raggu caynkaa ku sameeyey abu hurayra ka mid ah, khaalid ibnu waliid baa ka mid ah, camar ibna abilcaas baa ka mid ah. saxaabo waaweyn buu cumar ku sameeyey. bale ragga qaarkood xoolihii ay wateen buu wuxuu yidhi waxaa la yidhi xagaa ka keenteen. markaasay sheegteen inay tijaaro iyo baac mushtar waxoogaaga aad bixisa mooyaane wax kaleanu ka baac mushtaraynin. markaasuu yidhi waxaan ogahay inaa muslimiinta suuqyadoodii iyo wuxuu dan ku gasheen, waa madaxdii iyo u yaro banneeya waxbaa kollayba magaca ku qaadeen buu yidhi xoolaha badh baa keenaysaan. magaca madaxnimada kollay fursadaa laydinku sii siiyey buu cumar tilmaamaya aan qofka caadiga heli kareen. marka tashtiiru maalikum baan rabaa buu yidhi, xoolaha inoo kala qaybiya. qayb baa ku daraysaan maxay? baytulmaalka, khasnada dowladda qayb ku daraysaan. waxay ahayd inuu kula dhaqmo dee sunnadiiba nebigu kula dhaqmaya calayhi salaatu wasalaam. nebigaa nin shaqaalaa diray, xadiidkii bukhaari iyo muslima ku yaallay. dabeetana xooluu soo ururiyey. markii uu soo noqday ayuu yidhi xoolaha intaana idinkaale intanaana hadiyad laysoo siiyey. nebigaa wuxuu ku yidhi afalaa qacadta fii beyti abika wa ummik fanadarta ayuhdaa laka am laa. maad guriga hooyada iyo aabbaha fadhidid oo eegtid in hadiyad laguu keeno iyana laguu keenin. yani shaqada muslimiinta aad ku soo qaadatuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam. dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu masaajidka yimi, intuu salaad tukiyey dadkii kadib ayuu khudbadeeyey. markuu ilaahay subxaana wa tacaala ammaanay buu nebigu wuxuu yidhi ama bacd fama baalu lcaamil nastacmilu fayaatiina fayaquulu hada min camalikum wahada ma uhdiya ilay. waa maxay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dadkan shaqaale aanu diranayno ee intay soo noqdaan odhanaya ninkii shaqaale dowladda u diratay intana idinkaale intana ana hadiyad laysoo siiyey.
warmuu guriga aabihii hooyadii fadhiya buu yidhi eega in wax loo soo hadiyeeyo fawalladii nafsu muxammadin biyadih laa yagullu axadukum minha shayan ilaaha nebi maxamed naftiisu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee buu leeyay nebi maxamed intuu dhaartay calayhi salaatu wasalaam intaa in lee kama xadaan buu yidhi ilaa iyo aakhiro waxaa imanaysaan maalinta qiyaame iyadoo kii awr xaday awruu dushiisa saaraya uu doobiyayo awr doobiyaya adigoo sida waa awrkaad maalka dowladda iyo muslimiinta ka xaday kii sac xaday isagoo sac maxay khuwaar leh ciyaya bannaaxinaya kii la xaday iyo ri xaday iyadoo ay aanaysa ama cabaadaysa inay iman doonto faqad balaqtu buu nebigu yidhi waa idin soo gaadhsiiyey madax yahay waa idin soo gaadhsiiyey buu nebigu tilmaamaya madaxdu inay xoolaha ummadda iska ilaaliso koobkaad cabtaba koobka kale ee lagaa qaada inuu ni markaad laba shaaha cabtaba mid bay dowladdu qaaday kaasi waa inaanay isku cunin ee waa inay bulshada dib ugu soo celisaa waataynu dhi cumar wuxuu madaxda ku lahaa warniyow hebelo waxay soo gaadhay inaad xoola foofsatay waa cahdii bika qabla dalika an laa maala laka buu yidhi berigii horena waxaan ku ogaa inaanaad xoola lahayn ee ii soo sheeg xoolaha meeshaad ka keentay tijaariya waxbuu sheegto wuu ku celiyey is-ammaanka iyo warkaa iga daa buu yidho warka ma aad ii sheegin meeshii aad xoolaha ka keentay dib u soo sheeg casrigan bay fahmeen duwalka maanta nawcan maa dadka is-ixtiraama nudamkooda ixtiraama maanta duwalka dunida waxaa jira waxay yidhaahdaan taqdiima dima almaaliya mas-uuliyiinta sare wasiirada iyo madaxtooyooyinka iyo kuwa bangiyada qabsanaya waxaasi intaan shaqada loo dhiibin duwalka reer galbeedka waxay ka qoraan waxa la yidhaahdo addima almaaliya inuu keeno hantidaadoo dhan waa inaad caddaysaa intaanad madax noqonin oo intaan mas-uulka madax laga dhan madaxweynaha laftiisa laga soo qoraya maxaa laga qorayaa waxaa laga qoraa waraaq buu buuxinayaa form ay ku qoran tahay isaga iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa wixii da'yar wixii ay hanti haystaan maguuraana iyo hanti guurta labadaba accounts wixii ugu jira wixii uu leeyahay shirikaada wixii ashuma wixii sanadaata waxa allaaliya wuxuu maal leeyahay oo dhan buu qorayaa xataa waxa la qoraa wixii gurigaaga yaalla macaadin ama gabadhaadu ay isku qurqurxiso ama carruurtaada lagu qurxiyo ama guriga yaallo dhan baa la qoraa xajaar thamiina wixii ah waxaasoo dhan maxaa looga jeedaa intaa iyo wixii dayn lagugu leeyayba waa la qoraa si markaad madaxtinimada dhammayso loo ogaado waxa kugu soo kordhay dakhligaagii miyay ka badan yihiin mise kama badnaa maalintaad madaxweynenimada ka daadegto ama wasiirka ka daadegto ama bangiga ka daadegto waa in la ogaadaa hantidaadu marka kan inta ay maraysaa miyay ka badan tahay intii markii hore aad haysatay in macquula ma tahay mise ma aha waayo waxay idhahdeen waa in la ogaadaa madaxdu intii ay madaxda ahayd inay suuqyada madow iyo khasiilul amwaalka iyo rishwada iyo shirkadaha laaluushkooda iyo baabka inay wax ka qaadiyo in kale waa inay caddaataa waa duwalka gaaladaa maanta sida tan isticmaala laakiin cumar cahdigiisii buu isagu taagnaa minayna laka haada madaxday xaggaad wax ka keentay innagana waxay noqotay shalayto mid shaaha shaxaadayay uno xagga dawladda u kacay oo berrita daara waaweyn la ama bakhaarale ama baamushtara ficlan wuu soo xaday muran kama taagna xataa haddii hadiyada loo siiyey waxay ahayd inuu ku daro meesha dawladda inuu ku daro intuu hayo mansabka ummadda may ahayn inuu wax ku cuno ama wax ku qaato may ahayn war dadka ay xiise ixtiraamaya waxa laga yaabaa idinka inay su'aalo basiida idin noqdaan John F Kennedy Mareykanka madaxda ka ahaa ayaa islaantiisii Yurub soo qabatay shir jaraa'id isagoo ayaa mid suxufiyo oo su'aal buu weydiiyay oo yiri islaantaadii way dhoofto Mareykanka waxay qabatay Yurube ma jeebkaaga ka dhooftay baa la yidhi mise khasnada dawladda waa madaxweyne su'aal la weydiinayo bala inagu inta isma weydiinayno laakiin waxay ahayd in la isweydiiyo minayna laka haada maantana waxaad maqlaysaan madaxda dhacday ee la tilmaamayo la leeyahay waa la banu cali 5 milyaar bay yidhaahdeen baa iminka inta la hubo ee bangiyada la hayaa marka laga taga bay yidhaahdeen qasnadihii qusuurtiisa dhex taallay wixii loogu yimi marka laga tago darbiyadii gurigiisa la jafay wixii lacag ku jirtay 5 milyaar hagu ka keen shirkadu la mise taajir baa madaxweynuhu hay waxay leeyihiin xusni mubaarak 70 milyaar wax ku dhadhoobay sheegayaan hadda qadaafiga kan culamo badan ay gaalaysiinaysaa isagu wuxuu sheeganayaa 82 milyaar bay yidhaahdeen
iyadoo budgetka dawladdiisuba sanadka kan 2011 budgetka dawladda libiya waa 22.4 milyan 22.4 bilyan weeyaan budgetka dawladdu keligii baana haysta baa la leeyahay 82 oo isagoo askariyu meesha qabsaday xaguu ka keenay waa minayna la kabaan oolin maanta qura waxa kane may dhicin horena way u dhaceen yani taariikhda islaamiga aan idinka warramayo bayjaj qurux badanina waa ku jiraan bayjaj madoobina waa ku jiraan iyada lafteeda laakiin waxaynu u baahanay inaynan isweydiinin ama dulmiga aan aqballo ama se fawda aan u baxnay inaynan aqbalin labadaa midnaba laakiin la aqbalo maxay inay dadku cadaaladda u baxaan dulmigu hadduu bato kuwan ka daalimsan baa caalamulislaami hore u soo maray ما مقشين الحاكم بأمر الله إن اللي أورنجري أبو علي المنصور بن العزيز بالله دولة الفاطمية في مصر دولة دي كتلين شرتي نين إمام الذهبي وأئمة الجرح والتعديل كم ده ورجع كلمات كود وحكوا التعديلية أنا مجرح يعني ميزامية أي في سير أعلام النبلاء وحكوت المامية كان شيطانا مريدا جبارا عنيدا كثير التلون صفاكا للدماء خبيث النحلة انتو صاو وضي بوحكوت المامي كان فرعون زمانه بيولي وإمام الذهبي وأئمة الجرح والتعديل بوحليه والشيطان مضحضك وجبارة وعنيدة وكان مرقو صواشي قبولي وفرعون كي وقت يسوها بيولي إمام السيوطي بوحليه كاسي مرقو مضحضك ماشة أي مضى خطبة معاه أخرده وحكو واجبية مجي عيسى مركا الله صاق هذا بالليل ومضى مسلمين تاهور دمي وين يستاكتاه إجلالا لذكره واسمه بين هذا أمير المؤمنين مركا الله دوار يا الحاكم بأمر الله لا شاكس وين يستاكه إلا كعبة اللي سكتاك تشربوا لي إمام السيوطي بل الرير مصرية وحو قارها مركا مجي عيسى الله صاق هذا ضدك وحواجب كهين وذا السجودان ولا سجود الشري ابن هاني قبياقي وأنا كوترين ينفليا ما شئت لا ما شاءت الأقدار قبل لا ما مغشين وأسيق كيلو تريني هذا الحد وحقات سنا حد وحيد هذا وقته ما ضحى إلا سداد يتوانكم بدلي حتى وحول لا ينشري وحيد هذا ما أنتوا وسير كذا قام مدو بونبونية بريتم بدلا بريد ما حتى وزارة ولا بغشري ويبروك دلي هذا لا وزيرون نقطه هذا ما لقيه بينك دلو تناقضات كيسا علماء بربا كود دودا تاريخي أنا ده كم ده ورو والله نو والله نضد مدحوها واحد سلاي غذافي قاس وكلهم ملاها يعني واحد كنت لما شان إيه الله واتنسى نضد دول فدي وهو سيدا دتك كودي كثير التلون بي كنت لما واحد المامان أمر بصوصة ريولاي صحابة عيدة ودوين مساجد الغدة الشيعة يساقوا وحو شيغانية الشيعي إسماعيلية درزيين تكون الله يدعى إساق إله بيو هيستين با درزيين تكون الله يدعى شيعة إسماعيلية دون وحيو هيستين أمير المؤمنين كينو يهي علماء بدر المسلمين تنوحي لها ينواء دواك إمام الذهبي ولا وفرعون زمانه فرعون بيو هيستين صحابة عيدة دبو يدوين مساجد الغورة والغورة غورة مردا بو هدنا يدوين دمان تور لغا مسحة لغا مسحة مساجد بدن بو دسي markaasuu haddana yidhi salaatu taraawiix laguma tukan karo wuu ka wada joojiyey mar dambe haddana wuu ogolaado dumarka masar oo dhan buu yidhi gabadhiba dabad uma bixi karto sinaba waa mamnuuc beri dambe haddana yidhi waa iska bixi kartaa mar dambe uu yidhi masar war maalintii lama baac mushtarin karo suuqyadu way xidhan yihiin habeenkii unbaaba la furi jiray daahiroo dhan ayaa maalintiina xidhnaan jirtay habeenkii unbaa la furi jiray mar dambe yidhi war qolada tan kristanka iyo waxana way kibreeneen waxa kiniisad masar ku taalo dhan la dumiyo waa la wada dumiyey muddo markuu joogay markaasuu haddana yidhi weliba nin kastoo kristani waa in macatab culayskiisu intaasoo rodal yahay loo xidhaa mar dambe haddana yidhi maya kiniisadihii oo dhan waa in loo dhisaa haddana dib u wada dhisa wuxuu yidhi baashan muluukhiyada iminka masaaridu tidhaahdo waagaa hore muluukiya baa la odhan jiray bay dhahay wuxuu yidhi muluukhiyada qoyska boqortooyadu ma cuni kara dadka kale oo ka mamnuuc muluukhiyada ma taqaanin muluukhiya maclaraanib waa maraq yar oo cayo ka samaysan cayadoo kale ah oo masaarida agtooda macaan ma laha wuxuu yidhi boqortooyada iyo balaadka qura lagu cuni kara ee idinka intiina kale laydinma ogola
markii dambe dadkii ku kaceen markay arkay dadkii inay soo kacayaan ayuu qolo cabiidiya wuxuu haystay buu yidhi qaahire baa la soo gubo xagga dambe baldajiyadii masaroo kala deewan xagga dambe dab laga soo suray magaalada qaahira 3 meelood marka loo qaybiyo nus baa gubtay thuluth baa gubtay 3 meelood meel ahaan baa gubtay waxay dhahay magaalada nuskeedna waa la boobay markii dambe dadku yidhahay wariga tahay qofkan baas madaxadaygiisa iyo dadlayntiisa waxay sheegaan taariikhyahanada qaarkood 3 maalmood inay dadku maxun baa la arkay isagoo meel dab ka shiday waxba markaas la yidhi wayna gubaya dadku leeynaya madaxdii iyo dadkii oo dhan baa isu tagto 3 maalmood baa cafis laga bariyay waxba lama sameeynin laakiin ninkii waa la daw soo socda weeyaa walaga baqay 3 maalmood baa cafis laga bariyo la islaha wariyo lafiina idin leeynina aakhirkii tay walaaliin baa istiri warkan aakhirka adu kugu soo socda mise dawladnimadu u baqdo waxba ay sheegaan iyadun baa taktika u dhigtay habar sita la oran jiray waxaan u malaynayaa tan islaameen ku saliyaan inay tahay sita ay xaadime faadba ma waytay ay taatan ma habar sita la oran jiray ayaa dabeetana dishay oo qoloba meel buuru tagi jiray mushacwad buu ahaa xidigaya wax buu rubaysnaa wax badan buu sameyn jiray 7 sanadood bay dhaadeen buu mar meel midow fadhiyay oo uu wax akhriyi jiray mar ala kulli xal waxaan uga jeedaa madax kuun ka liitaa way soo mareen laakiin ظلمiga ma barakaynayno hadi waahida fawdana uma yeedhayno iyo fitan laakiin waxaan u yeedhaynaa waxa weeyaan ummadda muslimiin inay cadaalad hesho madaxdu hadday cadaalad ku dhaqmaan oo ah inay ummadda muslimiinta ay ixtiraamaan oo aanay dulmin aanay waxba u geysanin maalka caamka ee ummaddu leedahay inay si sawiya u qaybiyaan oo dadka muslimiinta xuquuqdooda ay siiyaan aanay u arkaan in xoolo agoomeed iyo aanay isku cunin qodobka saddexaad isaga kamaan hadalo de culamaa ilmuslimiin kii hore wax masalada si kale ka fahamsaniba ma jira lansiya lidawla kharijiya ummadda dhan oo madaxdeedu cid kale u hogaansantay sababta koowaad ee keentay waxa weeyaan dadkooda aanay kalsoonidiisa haysanin ninkii shacabkiisa kalsoonidiisa haysta dawalka kale kama baqo laakiin haddii dadkuna kugu kacsan yahay qoladii dabadee ku yara busteen ama waxa ku siinaysan isku kacdaan meel cilaad ku dhacaysa marka sababta keentay in siyaacan dabadeedinta badani waxa weeyaan xurmadii iyo weynidii ummadooda aanay haysanin kelmadan marka waxaan ku soo koobay waxa weeyaan labadan taraf ee u shawniyaan leeno akhriin oo ah zulmiga ha lagu sabro qura ama se fawda iyo fitnaha loo baxay waxaan leenahay wax ka dhaxeeya jire ummadda muslimka cadaaladda ha barato assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sahay male adduunyadu ninkii dhabisu siiyay sakaaliyo marbay kuna gashaa surin cidhidhyoni rag badan bay sursuur kaga tagtayoo siday maarinkii rag badan bay sursuur kaga tagtayoo segay maarinkii inkastoo lagu samafalo sara lagu qado inkastoo awood saayidiyo sada lagu buuxsho si kastaba wego wakhtigu malaha saaxiibe sabeenkiyo dabayla socdiyo subaxba wacayne sabeenkiyo dabayla socdiyo subaxba wacayne waxay suursanaataba markii la isku sawliley salal baas naamtii ku dhacay sabadanu tile badhna waa socdeen qaarna waa si salsaalayaane badhna waa socdeen qaarna waa si salsaalayaane kumuse xansayn caabidiin saymuhu galay sinaadiyo khamrada waa fasaxay sidii atature salaadiyo wacdiga waa nebcaasona ma aqoone sunna badan ninkii soo tukaday samax ma lahayne sidaa wuxuu ahaadaba markii la isku sawliley saqdhuxu ka guuday dawladiyo sarihii dheraaye saqdhuxuu ka guuday dawladiyo sarihii dheraaye
saddexdaa suntae waa murtidaa surimadeedii maseer waxaa sacsaacay khaayinkii sibirtaan dheeray marna kama siqsiiqinoo hintiyo sica falastiine saddex buu yuhuudda u ahaa saalax waa tuhuy suwaysiyo ismaaciil iyo sarakici guusha wixii suuqa qaahira ka dhacay waa la soo cotayne sareedada adduunyada ninkii sacabka loo buuxshay sidii arkasaynta leh wuxuu salawaab rarabaa sanka laga mude hawl yaraanuma saqleyeene sanka laga mude hawl yaraanuma saqleyeene saddexdaa suntae waa murtidaa surimadeedii safkan waxaa ku xigi liibigii saadufka ahay sifihiisa kuma koobi karo siinka maansaday salaxaal wareer buu qabaa saad u aragtene dadka inuu samaystay la tahay saaminow helay sidii oday sirqoobiyo marba sabila muday marna waa siciimiyo haliyeysa jaco adage marna waa siqraaniyo islaan saarayoo kale balse inuu iskaga suudaliyo seefta inuu qaato wanimaan la surayn karaynoo saleeliyahe wanimaan la surayn karaynoo saleeliyahe sadaashay muuqatiyo shicibka soo yamiyey saxalkii ilaahnaga dulqaad barina saray inshaa allaahu waa suulayaan saawahay seetada in loo wada jaraa waa sidaan rabay seetada in loo wada jaraa waa sidaan rabay saddexdaa sidkae waa murtidaa surimadeedii sanca bahalka joog iyo ciraaq sabad xuma jordan sanca bahalka joog iyo ciraaq sabad xuma jordan iyo horoorka reer suuri iyo saaqidka aljeris sufeehiga maroka ku xigiisaan isleeyahay sufeehiga maroka ku xigiisaan isleeyahay sabulka ka badan wiilashay cadow ku sorene iyagaa sirdoonka uu ahaa sancadaha gale sallaankii kufrigu fuuli jiray seesku hawdumoye sidaa kuma idlaan dowladii saaruqdahay sidaa kuma idlaan dowladii saaruqdahay saddoonkiyo siyaadada hadhiyo sohdimaha gaalkuu sidii rimay sidkadii go'ay baad sabanka mudday sidii rimay sidkoodii go'ay baad sabanka mudday sumalladan gumaysigu suntaday saacadow hadhay sunnihiyo qur'aankii bidcada laga sarraysiiyey iyagoo khilaafadii sida oo sanadiyo xugle xilliyada